sicirka qudaarta lagu kala iibsado suuqyada magaalada Kismaayo ayaa maalmihii u dambeysay sare u sii kacayay xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana ganacsada qudaarta iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka Jubbada Hoose ay sabab uga dhigayaan daadad xoogan oo ku soo rogmaday beerihii kala duwanaa ee gobolka ku yaalay iyo sidoo kale burbur aad u xoogan oo haysta wadooyinkii qudaarta ay soo mari jireen oo roobabka ay jireen taasina ay markaasi qayb weyn ka qaateen in qiimaha qudaarta suuqyada kala duwan ee magaalada Kismaayo ay sare u kacaan maraynu booqanay suuqa magaalada Kismaayo ee lagu iibiyo qudaarta ayaa waxaa halkaasi kula kulmay Nasro Haajir waxaana iga warbixisay sababta keentay in qiimaha qudaarta la kala siisto ee xilligan sare uga kacdo suuqyada magaalada Kismaayo beeraha dadkii marka wacdo dhaado qudaarta ma idinka go'day maxaa idinku dhacay qudaarta ma ii keentaan ayaga waxay leeyihiin anaga meel aan soo marina ma lahan 100 xabo qara beerta dii laga soo qaado 2 maalmood gaariga soo wadaaya gaariga dhula la go'aayo ma soo baxay wuu jabaya qari meesha lagu kala wareejina kareeta la soo saara waxaas magaalada Kismaayo runtii ma deeqdo wadada aad u xunaa dadka waxay jeclaan lahaayeen sida ay markasta sheegan laami inay helaan qudaartas ma kala go'i leen marka ilaa hataa Muqdisho ma kala go'i leen liimal beelmado kale hadda anaga ma heleen ilaa 3 bilood kadib ma heleen roob markuu doo buulaan oo laga keenay afgoyn oo laga keenay roob markuu doo mabna soo gaareysaba jaamac ogaas oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubbada Hoose ayaa dhankiisa walaac ka muujiyay sicirka qiimaha la kala siisto qudaarta oo sare u sii kacaya maalinba maalinta ka dambaysa beeraleydu isku nooc maaha sida bulo guduud iyo meesha la yiraahdo Barsonkuni iyo Wirkoy iyo meelahaas waxa weeye qaybana biyihii baa aad u galay qaybana wali way cayntaan meesha la yiraahdo qaamqaam iyo inta u dhaxaysa bulo bartire ayagana way roon yihiin oo biyuhu aad uma gelin waxa weeyaan meesha biyuhu aad u galeen waa san galeyr ay biyuhu aad u galeen iyo bulo guduud qayb kamid ah ay biyuhu aad u galeen marka beerihii ku yaalay dhammaan kanaaladoo dhan way buuxaan qiimaha qudaarta la iibiyo suuqyada magaalada Kismaayo ayaa waayidii u dambeysay aad u sii kacayay waxaana arintan saameyn xoogan ku yeeshay oo loo sababeynaya daadad xoogan oo ku soo rogmaday beerihii marka laga soo guri jiray dalagyadan kala duwan ee la keeno suuqyada magaalada Kismaayo waxaana sanadkan uu noqday sanadkii ugu qiimaha sareeyay ee qudaarta la keeno magaalada Kismaayo sidoo kale waxa aad u burbursan wadooyinka soo gala magaalada Kismaayo taas oo ganacsada qudaarta ay ku sheegayaan in ay qayb ka tahay sare u kaca ku yimid qiimaha qudaarta aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo